halkan waa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waa sida aad u jeedaan aniga iyo Daare Cabdiwali oo dhinaca kaamirada ee haya waxaan si aadi doonaa magaalada Muqdisho isgoosyadeeda oo guddiga amniga qaranku ay amar ku bixiyeen in guud ahaan magaalada Muqdisho la wada furo si shacabka iyo dadweynuhu markaasi iyo gaadiidku ay u noqdaan kuwa isaga galgoosha oo markaasi caadi u socdaalaya. waxaan soo gaarnay isgooska dabka ee magaalada Muqdisho hoos ayaan u sii degan doonaa oo isgooska ayaan tagaynaa si aan xaaladda wax badan aan ugu ogaano oo bulshada aan ula wadaagno in isgoosku uu yahay mid furan iyo in kale. halkan aan ku sugannahay waa isgooska dabka ee magaalada Muqdisho waa sida aad u jeedaan wadadan waxay ka mid ahayd wadooyinkii xirnaa maalmihii la soo dhaafay oo dadweynuhu ay aad cabasho uga muujinayeen laakiin markii go'aan uu ka soo baxay guddiga amniga qaranka ee dalkeena Soomaaliyeed oo ku amray in markaasi guud ahaanba wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho la furo ayaa suuragal noqotay oo wadooyinkii magaalada Muqdisho ay ka mid ahayd isgooskan dabka hadda waa uu shaqeynaya waxaad u jeedaan waa bajaajyadii iyo gawaaridii waaweynaa oo suuqi bakaaraha baawarta si caadi ay u shaqeynayaan. maasha Allah magacaygu waxa Zakariya Maxamed Cali waxaan ku faraxsanahay wadooyinkii maalmaha naga xirnaa oo ay shaqeyso wada dowladda federaalka Soomaaliya waa baahsiin in wadooyinka laga furo shacabkeena waxaan dhahay dowladda hala shaqeeyaan. markana waxaan ku sugannahay wadada 21 Oktoobar ama 22 Oktoobar ee magaalada Muqdisho xaggan hore waxaa naga jirta isgooska number 4 xaggaasna waa Afasioni geedkan u jeedaan ama wadadan dhinaca naga xigta ama bartan hadda aan hortaaganahay waxay tahay meelihii inta badan ay xirneedo dadka iyo gaadiidkaba inta badan loo diidi jiray oo aan la isticmaali jirin waqtiyadii la soo dhaafay laakiin xilligan waa ay furan tahay gaadiidleyda iyo dadka shacabka ayaa ah kuwa si caadi u isticmaalaya iyadoona arrintan ay ka dambayso kadib markii guddiga amniga qaranka ay go'aan ku gaareen in wadooyinka magaalada Muqdisho guud ahaantooda la wada furo. weli daawadayaal waxaanu dhaxmaraynaa magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah si markaasi aan bulshada ugu soo gudbino wadooyinka xirnaa oo dadweynuhu waqtiyadii la soo dhaafay aad cabasho ugu muujinayeen. halkan aan taaganahay waa number 4 waa wadadii u dhaxaysay number 4 ilaa iyo garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaan halkan kula kulmay dhalinyaro aad u fara badan oo bajaajley ah iyagoo si weyn u soo dhaweynayay go'aanka guddiga amniga qaranka ee ahaa in wadooyinka magaalada Muqdisho la furo iyagoo dhalinyaradana sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin wadooyinka la furay dareenkoodana ka hadlay. aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Umar Shariif Xasan waan ku faraxsanahay wadooyinka la furay sida wadada Afasioni wadada dabka oo kale aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan aad u jeclaan lahay waliba inta kalena in la sii wada furo si bulshada iyo shacabka aad isugu dhex maraan. magacayga waa Maxamed Aways Maxamed oo ka mid ah bajaajleyda ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho waxaan aad u soo dhaweynayaa wadooyinka la furfuray oo maalmihii ugu dambeeyay aad u xirnaa. dhibaato noocee markii hore aad qabteen haddana maxaa dareemaysaa? dhibaato weyn baan qabnay ma socon karno wadooyinka hadda meesha aan taaganahay waa kilometer 4 qof waxa ku qaadaysa 2 door bakaaraha ah ma geyn karta bakaara awood uma lihid waxa awood u yeelan kartaa inaad interboonka dhaafin waa dhibaatada ugu weyn ee naga haystay. halkan aan hadda taaganahay waa goobta markaasi baarlamaankii hore iyo waliba daljirka Dahsoon ayaa ka ah wadadan waxay ahayd wado in muddo ah xirnayd waana wado markaasi hormarta godka Jilacow ama iskuulka Sheekh Xasan Barsame muddo kadib xilligan si toos ay u shaqeynaysaa gawaarida caadiga ah iyo dadka shacabka ayaa si caadi u isticmaalaya iyo bajaajleyda waxayna markaasi qayb ka tahay isbeddelka ballaaran ee lagu sameeyay wadooyinka magaalada Muqdisho waqtiyadii ugu dambeeyay ahaayeen kuwa xirna oo xilliganna noqday kuwa markaasi si toos ah loo furay oo loo wada isticmaalay.